بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قبل كبنادر أهل الدقة مقالة مقدشة قدومي كحجينك الرماها برشدة مسؤولين تركتها جناسية وريو قدومي كحجينك ركتها جناسية يرشدها صوماليات حوجيها جود ركتها جناسية يرشدها أهل قدوميها ركتها جناسية جبلان ganacsatada kala duwan qaybaheeda soo qaybgalayaasha gabdho iyo wiilalba iyo mas'uuliyiinta gobolka Banaadir waxaan idin leeyahay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi farxad ayay noo tahay inaan maanta sanadkii shanaad aan bandhig weynaha carwada Muqdisho bandhiga suuq weynaha Muqdisho carwadaas inaan maanta sanadkii shanaad aan kala qayb galno oo sanad walba ay qabtaan aan ka baaqanin aadan u soo dhaweynaa farxadina noo tahay waxa kale oo aad muhiim u ah bandhigani oo suuqweynaha Muqdisho lagu magacaabo waxa Jeerman oo gabar ah oo Aisho khayr Allah siiyo waa runtii barnaamij ay gabar hor kacayso waa ka duwan yahay barnaamijyada kale ee isugu howleyso runtii gudoomiye waxaad aragtaa 5 sano waxaan ku bilownay markii hore number yar oo ahaa hadda waxaan maleynaa 300 ilaa 400 oo buud in maanta laga sameeyay meeshaas oo intaas qof ka soo qayb galeen 3 maalmoodna oo socon doono oo maanta iyo bariisa dambe oo runtii ay noqon doonto in ganacsatada Soomaaliyeed ay wax u kala gataan oo waliba dadweynaha Soomaaliyeed loogu baaqayo in discounti badeecadaha 30% la siinayo carwooyinka faa'iidooyinka ay leeyihiin waana la isku bartaa waxna waa lagu kala gataa waliba hadda xilligii Ramadaanka nagu soo dhow oo bilka bacdi ah marka waxaan arkay qalab badan oo Ramadaanka wax ka anfacaya oo meeshan discounti loogu tala galay oo dadka lagu soo dhaweyn doono insha Allah waxa kale oo aad muhiim u ah oo aad aan ugu bogay inay bilowdeen alaabooyinkii qalabka beeraha oo agafyada aad arkayseen oo hadda meesha la soo dhigay oo beeraleyda loogu talagalay ayadoo discount leh oo runtii ay ka gudubtay markaan inaan buudad iyo dukaamada joogi jirnay aan u guurnay inaan agafyo la keeno qalabka culus ah ku soo xigi doono insha Allah marka waxay ku tusaysaa in magaalada Muqdisho ay kor u socoto ganacsatada Soomaaliyeed ay aad u dadaalayaan wax badanna aan maaragtay aan ka baran doono waliba waxaan idin sheegaa arsan waa la isku balansadaa carwooyinka hadda sanadkan waxaan nagala soo qayb galay Jubaland Chamber of Commerce nagala soo qayb galay sanadaha dambe waxaan azumi doonaa jambarada kale aan azumi doonaa inay nagala soo qayb galaan ayaguna oo ay waliba la yimaadaan badeecadooda iyo qalabkooda iyo alaabtooda annaguna aan saasoo kale mararka qaar aan ugu tagno marka waa rajaynaynaa inay hor u socoto waa carwadii oo qarankana waa rajaynaynaa inay mar gacanteena ku soo noqoto oo gobolka hadda bariyaan dadaal ay ka wadaan dhulalka iyo waxaas arintaasna waxaan rajaynaynaa inaan carwooyinkeena aan ku qabsano meelihii loogu talagalo oo weynaa waxaan rabaa inaan u hambaliyo ganacsatada Soomaaliyeed ee maanta ku soo bandhigtay badeecadooda meeshan dadaalka ay sameeyeen iyo horumarkooda waxaan isleeyahay guuleysta waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu hambaliyo suuqweynaha Muqdisho bandhiga suuqweynaha Muqdisho ee Jeerman ka tahay Aisha iyo saaxiibadeedna waxaan leeyahay haniye jabinina waa guuleysateen dhameystira intaas aan rabaa inaan ku soo koobo waqtiga iska gaabgaba waxaan rabaa gudoomiyaha gobolkan inaan ku soo dhaweeyo maadaama uu timeka iska gabagabaya gudoomiye welcome soo dhawow